munaasabadan lagu guddoonsiinay shahaadooyin sharfid ah qaar ka mid ah mas'uuliyiin ka tirsan jaamacadaha dalka Suudaan ku yaala ayaa waxa soo abaabulay ururka horumarinta haweenka Soomaaliyeed ee dalka Suudaan ka dhisan. munaasabadan oo ahayd mid ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin isugu jira maamulayaal jaamacadeed iyo madax ka kala socotay safarada dalka Suudaan iyo mas'uuliyiin kale oo Soomaali ah ayaa mas'uuliyiintii ka kala socotay Soomaalida iyo howlwadeenada jaamacadaha dalka Suudaan ee halkaasi ka hadlay ku dheeraadeen labada dhinacba sida ay Suudaan u garab istaagtay shacabka Soomaaliyeed oo aysan jirin cid ama dawlad kale oo sidaasi u garab istaagtay waliba marka loo eego dhanka waxbarashada. inta badan mas'uuliyiintii halkaasi ka hadashay ee Soomaaliyeed ayaa waxa ugu mahad celiyeen dawladda Suudaan si guud ahaan gaar ahaan maamulayaasha jaamacadaha dalka Suudaan oo iyaga si gaar ah ugu sii garab istaagay ardayda Soomaaliyeed ee doonaya waxbarashada. Xaatim Maxamed Fadla Sayid oo ahaa madaxii hore xafiiska diiwaangelinta jaamacadda Afrika ee caalamiga ayaa sheegay isaga oo halkaasi ka hadlay in garab istaagidda ay garab istaageen shacabka Soomaaliyeed ay ahayd mid diinta amrayso oo ah marka walaalka dhibaato haysato loo baahan yahay in la garab istaago. يعني الكثير من الظروف التي يعيشها اخواننا في الصومال، هنالك ارامل، هنالك ايتام، هنالك ظروف صعبه، فلذلك كان وفدنا لهم من باب قول المصطفى صلى الله عليه وسلم duruufta ay ku nool yihiin walaalaheena Soomaaliyeed ayaa waxaan garanay in aan ku dhaqanno qowlkii nabigeena suuban naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee oo ahaa qofkii aan ihtimaamsiinin arrimaha muslimiinta inuusan ka mid ahayn. sidaa darteed ayaanu kula dhaqannay Soomaalida aanu buuxinay hawshii aan annagu u arkaynay in ay tahay waa loo baahan yahay. anigu si tadarruca u hadlaya waxaan is leeyahay weli booskii loo baahnaa maanan buuxinin. waxaan u mahadnaqayaa walaasheena Suusaan iyo ururka منظمة الطلاب الوافدين. فلذلك dhanka kale Cabdalle Maki oo isaguna kamid ah mas'uuliyiinta ururka daryeelaha ardayda ajaanibta ah ee dalka Suudaan wax ka barta ayaa isagana ku amaanay ardayda Soomaaliyeed inay yihiin ardayda ugu wanaagsan ee Suudaan wax ka barata diin ahaan iyo dhaqan ahaan intaba. ونشهد الله ونشهد بأن بناتنا وأولادنا الصوماليين من أفضل الطلاب خلقا ومن أكثر الطلاب حفظا للقرآن الكريم، وما رأيت قط صومالية غير متحجبة، وهم يقدرون المعروف، والصومال شعب قوي. waxaan ilaahay dartiis ugu marqaati kacaya in gabdhaheena iyo wiilasheena Soomaaliyeed ay yihiin kuwa ugu wanaagsan akhlaaq ahaan iyo inay yihiin ardayda ugu badan ee xifdisan Quraanka Kariimka. weligay maan arag gabar Soomaaliyeed oo aan xijaabnayn. wanaaga ayay hormariyaan. Soomaalidana waa shacab aad u xoog badan kuna xoog badan iimaankiisa iyo go'aanadiisa. ardayda ugu badan ee ugu horeysa galana kaalimaha ugu horeeya jaamacadaha dalka Suudaan waa Soomaali dhamaantood. iyadoo sidaa tahay dagaalka ka dhaxeeya iyo fidnada lagu dhex abuuray haddana waxay arkaynaa ardayda ugu badan ee waxbarashada Suudaan u imaanayeen yihiin ardayda Soomaaliyeed. يشعروا ويقدروا كل ما قدم لهم من خدمة. marwo Suusaan Xirsi Faarax oo ahayd ku-xigeenka madaxa ururka horumarinta haweenka Soomaaliyeed oo iyadu isku soo dabaruday barnaamijkan lagu maamuusayay sharfidda mas'uuliyiinta jaamacadaha dalka Suudaan ayaa markii uu soo dhamaaday TV-ga qaranka ugu warantay waxyaabaha ku dhaliyay in ay sameeyaan munaasabad caynkan oo kale ah. waxaan sameynay anagoo xuseynaa sanad guuradiis 7 ee jimciyada ururka haweenka Soomaaliyeed ee horumarkeeda inaan takriimino dhowr niman odayaal ah oo Suudaan ah inaan ku ixtiraamno siday u soo dhaweeyeen ama jaamacadda Afrika ugu horeyso iyo jaamacad kaleete sida Soomaalida ardadeeda ay ugu sameeyeen macruuf weyn ama wadanka Soomaaliya howl ka qaateen qayb weyn waxbarashada. sidaas awgeed waxaan jeclaysay inaan xaflad ku magacleer jimciyada Nahat al-Mar'a Soomaaliya in asugu yeerno nimanka odayaasha oo ku takriimino majhuudka u qabteen Soomaaliya anagoo aan ku soo koobi karin casho ama liqaa waaxda laakiin waxaan tusnay inaan u hayno abaal weyn oo weligiis iyo aliis aan dhamaanaynin inay yani arday badan oo kumaan gaarta ay wax bareen ay walina qaar kood barayaan. sidaas awgeed waxaan jeclaystay anigoo ah نائب الرئيس جمعية نهضة المرأة الصومالية وكهذه أفكار هويين كالصومالية
inaan ku shukriyo majhuudka inoo sameeyeen iyo kuwii haatan wadaanba. munaasabadaha caynkan oo kale ayaa inta badan ku yaraayeen in lagu qabto gudaha dalka Suudaan, hase yeeshee waxaa la oran karaa waxay fariin u diraysaa dalka iyo dadka Suudaanta ah oo lagu dareensiinayo in abaalkooda ay u galeen dadka Soomaaliyeed aan la ilowsaneyn, hase yeeshee laga warahayo. Fiido Maxamuud Fiido, TV-ga qaranka Soomaaliya, Al Khartoum, Suudaan.